السلام عليكم صاحبي الكسو dhawaada halkan waa macadka barashada ee cilad bixinta kombiyuutarada Sikor maanta waxaan qaadan doonaa 10 ku saabsan sidee password loogu xiraa Excelka iyo sidee loogu furaa 10 ugu horeeyaan qaadanay hadii aan aragno faylkeen ugu dambeeyay xisaabta maalinlaha ah inaan furno daarano double click aan ku siinayna waa fureena waa weyneynayna dabcan halkan inta kala tusaale xisaabadan ku qoranayna 200 inta waxa ku qoraynaa 500 halkan waxa ku qoraynaa 900 halkan waxa ku qoraynaa 800 kolomkaas oo kale inaan hadaan rabno aan daatada ku jirto weyneyno falaarta markay saas noqoto aan korgeynaan click ku siinayna markuu noo doormo ayaan tagaynaa halkaas ay ku qoran tahay font ee aan riixayna saa weyneyno hadda waa noo weynaadeen waa noo weynaatay marka hadaan rabno casharaadka noo soo socdo hadaan kasii hor dhacno waxaan rabnaa lacagtan inaan boontiyada la socdo kale aan muujino comma style ayaan tagaynaa home tab anagoo taagan ayaa waxaan ka tagi doonaa home tab aan click ku siinayna waxaan tagaynaa numbers group waxaan kasii tagaynaa comadaas aan ku dhufanaynaa markaan ku dhufatay hadaan rabtid halkan waxaad ka heli kartaa calaamada dollarka haday tahay lacagta United States haday tahay English United Kingdom euro haday tahay Chinese haday tahay Switzerland iyo French xisaabaad kale formaatyo badan halkan aad ka helaysaa marka hadii aan dollar ka dhigno saan oo kale xisaab halkan waxaan ka dhigi karnaa lacagtan inay ka timid taariikhda lacagta soo gashay control sim column aan leenahay taariikhda inaan soo gelin hadaan rabno sida noo soo socota taariikhda si loo soo geliyo formula la tagaa insert function aan leeyahay date halkan ku qoraysaa meeshaan date ku qoray kabacdi go leedahay sida noo iman doonto kabacdi okay leedahay halkan maalinta soo gelinaysaa yeerka waa 20 bisha waxa bisha shanaad waa dhiigo waa maalinka lixaad oo kale okay naama intaan dhaha saas oo soo gelin karaa ama control sim column waa dhihi karaa ya control sim column waa dhihi karaa control inta ku hormartid sim column la intaan oo kale xogtaan oo kale na save gareena daaran file aan tagayna xaleena save okay ina xirna daa u baahanahay waa xiran faylka marka waxaan rabnaa xisaabaada noogu qoran in dad ay naga qashaan ama naga arkaan ama ay wax update ku sameeyaan in bedelaan na rabno marka waxaan leenahay aydan furayna double click ku leenahay markuu noo furmo si password aan ugu xirno laba qaab password loogu xiri karaa marka qaab caadi ah oo normal ah oo special waa u gooni ah office-ka aan isticmaalayno 2013 iyo qaab general ah marka sida generalka guud office-yada dhan kombiyuutarada ay ku jiraan wada uu yahay office 2007 2010 2013 kuwaas oo waxay ka mid yihiin marka waxay ka mid yihiin sida loogu xiro sida loogu xiro save as la tagaa ama F12 la riixa meeshuu faylku ku yaala tagaa desktop marka halkan ay taagan tahay waxa la furaa meesha ay ku qoran tahay tools waxa laga sii tagaa meesha ay ku qoran tahay general option meesha waxaan ku soo saaraa inaad abuurtid waxaan ku yiraahdaa password cusub aad gelinaysaa passwordkaaga kore passwordka hoose inay ismaaj gareeyaan waa isku mid noqdaan mar kale aad ku celinaysaa passwordka okay la mar kale aad ku celinaysaa oo ku xaqiijinaysaa si passwordkaaga aadan u qaldin kabacdi save aad leedahay marka yes oo ku celinaysaa repeat kabacdi close marka hadda inaan furnaada u baahanahay inaan password haysanaa this file is protected with a password qaldan daa gelino marka yeelay marka wuxuu ku leeyahay waa qalad passwordkiisu ka rabaa saa u soo furtid file tag open da xisaabta maanta ma furi kartid adoo password soo gelin marka passwordkaaga gelinaysaa kabacdi ku celi oo ku furmaa hadda waa kaas see loogu remove gareeyo passwordka file aad tagaysaa save as aad leedahay desktop aad tagaysaa desktop markaa ka tagtid meesha ay ku qoran tahay tools aad tagaysaa general option aad ka sii tagay general option passwordka aad ka tiraysaa marka kan oo tagay passwordka ka tiray kabacdi okay aad leedahay kabacdi aad leedahay save aad leedahay yes aad leedahay marka haduu ka furiyo marka passwordka hadaad gashid double click ku sii fur wax password kuma weydiina because waad ka furtay so kan waxa harta marka fiir taariikhdan iyo maxaan ku dhahaa daatada ku jirto row ee column-kan f inaad isku ekaysiisaa u baahan tahay tusaale kale kan oo kale waa bold kan oo kale waa farteeda size-ka aad u yartaa 12 laakiin midaan waxa waa 18 hadda fiir salkan soo weyneynayna halkan column-kan aan click ku siinayna right click aan ku leenahay so right click aan ku leenahay waxaan ka tagaynaa meesha ku format painter kan taabanayna click aan ku siinayna size-ka kan oo kale camal isku yeesho ku dul jiiday adoo click tahay ku dul jiiday isku size noqonaa marka saan haduu ka noqdo oo calaamada hashaashu ka noqdo yani godka ku yar macna salkan haluu leeyahay yar sayelisa saas markay noqoto qabanay waa jiiday oo kala fogeynaysaa marka wili waa jiidaysaa hadeertaan wuxuu aragtaa inuu qiimihiisa saxan u qaatay formatka laakiin mar walba wuxuu qaadanaa size-ka xisaab ahaan uu dheydkii u bedelay marka formatka uu bedelay laakiin xisaab ahaan uu bedelay markuu qaldan yahay control zada la marka siisa ku celinaysaa oo ka qaldan tusaale laakiin waxa haday lambar yihiin sida saan oo kale 300 inta daana sida aan dhaano 600 sorry hoosteeda ku aan qoran raba 600 ama 900 700 inta waxa ku qoraa 1000
saan oo kala rabtaa marka ina format kan oo kale u yeesho waxa leedahay waxa ku qasbantahay inaan saan tiraahid ka bacdi aan right click tiraahid format painter tiraahid waxa u baahan marka waa ku dul jiidana kala u jiidana isku size ay noqonaa hadaba soo jiiday marka saan noqoto size ka ku yar waa gudka jiidaysa marka gudka weynayna lacagta marka waa say noqoto u fiiro marka same noqdeen lacagta labada same noqdeen saasna waa sida loo weyneyn karo maxaan ku dhahaa farta marka laga hadlayo format painter macayana inaad ku qurxin kartid fartii far u eg haddii tusaale oo kale laftirkeeda ay aan saan dhahno kalarkii aan ka bedelno guduud aan ka dhigno tan oo kalena kulli wada aan guduud ka dhigno hadda u baahana muhiim ma ahan inaad maxaan ku raayay sheeg aad kalarka ka bedeshid kana inta tagto dooratida dhigi kartaa saan kan sidoo yahay kan oo kale iga dhigi kartaa macna tan guduud noqonaa simple marka hadduu bold yahay bold ka dhigtan saas oo kale ku dul jiid bold noqonaa saas waa marka tan xisaabtan hadda save gareyno si kale oo file-ka password lagu xiri karaa jirto excel-ka waxa ugu xiri kartaa sida fudud waa tan marka sida in xog ku adkaataa suuragala file aad tagaysaa meesha ku qoranta protected workbook buuggaaga xir si ay xiri kaliya ku siinay encrypted password ku dhufanay passwordka aad gelinaysaa ka bacdi okay leedahay passwordka ku celinay okay leedahay wuxuu ku leeyahay password is required to open this workbook buuggan si loo furo password loo baahan yahay save marka close marka hadda password ku xirin oo qaabkii hore ma qaab kale loogu xiray hal mar bas ku weydiinaa qaabkan see uga furayna marka waxaad tagaysaa halkaan aad tagaysaa waxaa ka tagaysaa encrypted password kugu jira delete leeda okay leedahay marka ka bacdi save aan leedahay hadda waa save garaysay wax password kuma weydiin doono waa iska furta password sidaas oo sida passwordka loogu xiro haddii aan ka gudubno waxaa kale uu noo sheegaa buugga see looga baxaa excel see partial looga dhigaa see print preview looga dhigaa see passwordka see looga baxaa file closing haddaad rabtid inaad fileka iska xirtid xisaabta maalinlaha hadda meeshay ku qoranta inay xirtid hadda u baahanta close aa leedahay filekaas ku xirma laakiin excelka uu ku furnaana excelka gebi ahaan inaad kasii baxdeed u baahantahay waxaa leedahay wax kale ma dhehaysid waxaa leedahay inaad close u baahan tahay alt space c aa dhihi kartaa alt space c haddaan tahay micnaheed close u dhigantaa wuu naga xirmaa sidoo kale alt f4 haddaan wuu naga xirmaa isaga inta click kor ku siin alt f4 wuu xirmay oo excelkan hadda wuu xiran ama sidoo kale excelka waxaan ku xiri karnaa qaabkan ah inaan asoo dhan inaan xirno doobana close-kaas tagayna calaamada guduudkaan taabanayna close-kaas naga wuu xirma saas sida loo close gareeyo waa okay documentigan oo kale haddaan rabno intaan daabicin siduu u muuqana inaan fiirino waxaan ka dhigi karnaa partial waxaan ku dhahaa ama landscape control b haddaan dhahno saanu noqonaa warqadan hadda jiif waa taagan tahay stag waa inaan siixina daa u baahan halkaan aan tagaynaa waxaan ka dhigaynaa landscape wuu jiifana warqad way jiifataa inaan taajina daa u baahan office warqada say noqonayso way taagan tahay deertaan saasna waa dhigi karnaa ama waxaan tigi karnaa inaan page layout tagno oo halkaan ka doorano page-ada group waxaan ka dooranayna orientation landscape iyo partial saan waa marka file print preview haddaan dhahno saan usoo daacma wuu jiifa hadda haddaan dhahno page layout ku laabano orientation aan dhahno partial stag waa markaan control d ama print haddaan dhahno waa taagan yahay saasna waa dhigi karnaa fileka sidee loo sameeyaa header sidee loo remove gareeyaa header sidee page number loo soo geliyaa sidee loo remove gareeyaa intaasaan sameynayna marka ya sidee header loo sameeyaa header wax kale maahan header waxaa waaye documentiga qaybtan sare waxay kasoo bixi lahaa inay muuqato sidee usoo muujinaynaa saan sida soo socota usoo muujinaynaa insert tab aan tagaynaa header and footer group waxaan ka dooranaynaa header and footer kabacdi halka waxaan ku qoraynaa xisaabta shirkadda saas oo qoraynaa waa dooranayna waxay la gareynaa fartaan haddaan rabno inaan bold ka dhigno ama weyneyno saasaan dhigi karnaa bold aan ka dhigi karnaa biyan taabanayna kalarkaan ka bedeli karnaa shirkadda xisaabta shirkadda 2020 ka xisaabta shirkadda ay leedahay haddaan u baahana sidoo kale header waa soo gelina footer qaybta hoose hadda soo kale inaan muujina u baahana soo muuqanaa warqadeen file aad tagaysaa print preview leed warqadda saan ay usoo muuqan doontaa warqadda saan xisaabta shirkadda koray kasoo muuqanay marka qofka xisaabtan dejiyo kale inaa inta kusoo muujisa u baahan tahay see u qoraysaa marka footer aad soo gelinaya marka footer soo gelinaysaa waxaad sameynaysaa waxaa leedahay header and footer hoosaad geynay karsarkaaga kabacdi halkaan click header footer waxaa leedahay waxaa qoray Abdallah farta waa ka bedeli kartaa si aysan isku ekaan marka waa ka headerkaaga so normal state u celisay cala review tab tagaysaa so view tab tagaysaa sorry normal aad ku laabanaysaa
فايلكaaga marka soo muuqana hadaad daacay file tag print preview saan u soo muuqana marka prepared by hebel qofka diyaariyay shirkadda wuxuu qortay halkan waa area wax lagu qoraa si headerka loogu tirtiraa headerka waxa uu tiri kartaa inserta waa tagaysaa header waa tagaysaa so kanaad ka tirtiraysaa so inta aad tirtirin headerka waxa sameynaysaa ama asaga laftigiisa loo remove gareeyaa headerka waxa uu remove gareyn karnaa waxaan dhihi karnaa backspace aan ku tirtirayna headerka hadda waan ka tirtirnay footerkan saa ugu tirayna footerka hoos aan tagaynaa kana tagaynaa waa dooranay kaliya ku siinayna backspace aan taabanayna tirayna backspace delete ama backspace mar walba markaas aad sameysay ilowin inaad view tagtay si ugu laabatay xaaladda caadiga ah haddii kale page-ka waa kala firdhana wuxuu noqonayaa page aan caadi ahayn oo kala dadaabsan hadda marka hadda fiirino file aan tagno print preview waxa hadda ku qoran warqadeena wala madaxeeda iyo majaheedaba qaybta dhaxbisan xisaabna waa qoranta marka headerka saas loo sameeyo page number see loo soo geliyaa warqadaada inaad u yeesho number hadda u baahan tahay haddii header aad tagay header markaad tagtid waxa ka tagaysaa meeshan page number halkaan marka page number ku soo gala hadda hash wada ku muujinaa laakiin marka hadda wax qortid page number 1 uu qaadan doono oo fiirso number 3 waa laba page ka korayso ah page ka numberka labaad waa kana page ka numberka koowaadna waa kanaaba midkan waa see loo remove gareeyo page number header footer aad tagaysaa page number soomahan backspace la tiri mar alla marka sidaad ku laabatay xaalkan si uu uga baxo state kan ugu jiro view tagaysaa normal aad tagaysaa normal state marka daadan warqadaada ku laabatay warqadaadi print preview kaliya daatada ku qoran page number ma laha header ma laha footer ma laha marka saas sida loo sameeyo waa maasantiin halkaan macadka barashada kombiyuutarada sii kor magacayga injineer Cabdiraxmaan Cabdallah see you next lesson in Excel casharka xiga iyo practice badan inaad sameeyso insha Allah kaasaan noo balan